qorshaha dagaalka saddexaad ee adduunka. Sanadkii 1962 midowgii Sofiyeetku waxa ay wadeen qorshe sir ah oo khuseeyay awoodda nukliyeerka, taasoo saameyn karaysay waqtigaasi xiriirkii ay la lahaayeen wadamada Yurubta kale. haddii uu hirgeli lahaa qorshahaas, waxa ay weerari karayeen magaalooyinka Munich, Stuttgart iyo Nuremberg iyaga oo isticmaalayay awoodda radiationka. qorshahaasna waxaa saxeexay wasaaradda difaaca ee Jamhuuriyadda Czech, balse sanadkii 2007 waxaa qorshahaasi fashiliyay Beta oo waraaqihii qorshuhu uu ku qornaa ka haday xafiiskii maamulka Russia. intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunku, waxaa baaba'ay ku dhawaad 100 magaalo oo ka baxay maabka dunida, waxaana sabab u ahaa iyaga oo ku yaalay magaalooyinkaasi goobihii lagu farsameyn jiray nukliyeerka. in ka badan 1.2 milyan oo qof ayaa ku barakacay magaalooyinkaasi. 1971 waxaa dhacay shil khatar badan oo ka dhacay goobtii sirta lagu kaydin jiray ee Sofiyeetka, waxaana dibadda u soo baxay hub la qarinayay 30 sanadood ka hor. waxa uu ahaa fayraska lagu sameeyay gudaha laabka, isagoo oo dili karayay 100 qof ilbiriqsi kastaba. wuxuuna ahaa mid ka mid ah hubka loo yaqaano bio-weapon ee uu Sofiyeetku uu inaga qarinayay inta badan. waxa ay ahayd sanadkii 2002 markii ay baareen maxadka daraasaadka ee Montreal iyaga oo ogaa. sanadkii 1957 midowgii Sofiyeetku markab ay lahaayeen oo sir ahaa oo noociisu uu ahaa gujiska ama nooca loo yaqaan submarine-ka. waxa uu ahaa markab ay ujeedadiisu ahayd in ay ciidamada Yurub oo dhan ay ku baabi'iyaan, kaasoo qarxin kara 70 markab halkii saacba. burburkii midowgii Sofiyeetka horaantii 1990 dhammaan gujisyadii qorshaysnaa ayaa xadka ka baxay oo khashifmay. sanadkii 1961 sarkaalkii caanka ah ee Bondarenko ayaa ku dhintay jimicsi uu sameynayay iyada oo caalamkana laga qariyay dhacdadaasi. kadib horgaankii midowga ayaa go'aan adag ka gaadhay dhimashada sarkaalka, iyada oo dalka caqabad ku noqon karaysay. kadibna sir ayaa laga dhigay. kaliya sawiradiisa ayaa ilaa hadda ka muuqda dalka Ruushka iyo Slovakia. kadib saxafiga la yiraahdo Golovarov ee baara sirta Ruushka ayaa soo bandhigay sanadkii 1986 dhimashada sarkaalka. intii uu socday dagaalkii qaboobaa, Sofiyeetku waxa ay hirgeliyeen tijaabooyin fara badan. ujeedooyinkooduna waxa ay ahaayeen in la hirgeliyo sun wax ku dili karta neefsashada, waxaana la soo saaray suntaasi iyada oo lagu dariyay cuntooyinka iyo cabitaanada moorgaraysan. samaynta suntaasna waxaa ku guuleystay saynisyahankii Princeton, isagoo suntaasna ugu magac daray C2 iyada oo 15 minute wax ku dili karta. dhammaan shaqaalihii laabka ayaa qariyay sirtaasi. mid ka mid ah nooca ugu xun ee nukliyeerka ayay Sofiyeetku ay inaga qariyeen 29 Sebtembar 1957. waxaa khasaaray ama xumaaday qaybtii qaboojiska ee nukliyeerka sababo kiimikaad awgeed. 10,000 oo qof ayaa ku waxyeeloobay qaraxii sunta watay. 6,000 oo qof ayaa ku dhintay halka kuwii kalena ay caafimaad ahaan ay u waxyeeloobeen. shilkaasna Sofiyeetku way ka qariyeen guud ahaanba saxaafadda caalamka, balse 1976 ayuu Shores uu ku cadeeyay maqaal uu soo saaray. 24 Oktoobar 1960 Sofiyeetku waxa ay bilaabeen in ay sameeyaan roketka, kaasoo ka samaysnaa nitric acid oo qarxi karayay. 100 qof ayaa ku dhintay intii ay tijaabadaasi socotay. kadib madaxdii Sofiyeetku waxa ay shacabkooda ay ku qanciyeen in ay dadkaasi ku dhinteen cadow kale oo xeradii ay ku jireen soo weeraray. waxaa laga joogaa muddo 30 sano ah markii wargeyska Russia ka soo baxaa uu inoo cadeeyay xogtu sidii ay ahayd. Nati Maskare 1940 waxay ahayd goobta ugu sirta adag ee Sofiyeetka. Stalin ayaa amar adag ku bixiyay in 22,000 oo ciidankiisa ahi ay maxaabiis ku noqdaan goobtaas, iyaga oo amar diido ciidan sameeyay. dhammaan maxaabiistaas ayaa madaxa laga wada toogtay. kadib 1990 madaxweynihii ugu dambeeyay ee Gorbachev ayaa qirtay dambigaas. sanadkii 1932 waxaa macaluul dalkaasi Ukraine ku dhintay 8 milyan oo qof. qorshihii Sofiyeetka ayaa ahaa wax soo saarka dadkaasi in ay ku maalgeliyaan ciidamadiisii Hitler difaaca kula jiray.
waxay ahaayeen dad qaab siyaasadeed lagu xasuuqay sirtana waxay sofiyeetku ay qarinayeen muddo haaf qarni ah kadib waxaa si toosa inoogu soo bandhigtay arrimahaas gabadh russian ah oo journaliste ah arrintaasna waxa ay Ukraine saari doontaa maxkamad ciddii ka dambeysay xasuuqaasi